kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaal sida abdantiin oo mar kale iyo barnaamijkeeni taariikh reeb oo maanta idinkaga imaanaya xarunta caasimadda dalka Koonfur Afrika ee magaalada Pretoria waxaana barnaamijka marti inoogu ah maanta professor Caana oo aad wada garanaysaan Cabdi Ismaaciil Samatar professor ee ku soo dhawo barnaamijka professor su'aasha ugu horeysa haddii aan ku weydiiyo bal maadaama barnaamijka waa la heesu yahay ama magaciisu uu yahay taariikh reeb bal waxaad wax yar kooban naga siisaa faahfaahin taariikh nololeedkaagii hore taariikhda ma badna runtii tayadu ma badna Soomaaliyan ka hor dhigtay iskuul ilaa ka sare markii jaamacadu may badnaan markaasi marka jaamacadan raadiyay ingiriiska ayaan tegay oo muddo ka shaqeeyay sanad iyo bara kadib markaasaan Mareykan uga gudbay halkaasaan jaamacadaha digriga hore iyo ka labaad iyo ka saddexaad ka qaatay sanadkii ugu dambeeyay markaan PhD la waday ayaa dabeedna shaqo soo baxday shaqadii waan u tartamay 154 qof baa shaqada u tartamay oo qataan nasiibkaygu iyo ilaahay gargaarkii aniga shaqadii helay imikana waxaan shaqaynayay 25 sannadood ayaan macalinka ahaa Mareykan waan gartay marka professor dadka inta badan waxay kugu tilmaamaan inaad tahay professor Soomaaliyeed oo aad ugu weyn tahay Soomaalinimada dhammaantan waxaa jiray professor aad walaalatiin oo waxyaabo badan aad wadaagtaan sida aqoonta baridda jaamacadda iyo Soomaalinimada in yani uu sheegay inuu yani ka tana oo wax iska bedeleen Soomaalinimadii oo awal kora ku aamin jiray arintaasi Cabdi Samatar ahaan adigu ma la qabtaa mise waxa leedahay Soomaaliya waa mid waxa weeye horta maan dhageysan wararka la soo sheegayo Ismaalihi Axmed dareenkii Soomaalinimo ayaa ka baxday Ismaalihi Soomaaliduna waxaad moodaa dadkeenu hadalka ma hubsadaan waxba la yiri wixii baa la siiri waa la siiri marka ugu dambeysay ma garanaysid wixii la yiri markaan arko ayaan ogaan doonaa waxay guntu tahay laakiinse annaku haddaan nahay xisbi baa lana dhahaa Hiil Qaran magaalada Muqdisho caasimad xaruntiisu tahay mabda'iisu yahay Soomaalinimo iyo Islaamnimo oo ka tarjumaysa dadka Soomaaliyeed ee gaar ahaan jamhuuriyaddii ku noolaan jiray ama ku nool inay wadaagaan boqolkiiba 99 inay wadaagaan dhaqan iyo diin iyo dadnimo Afrikaas meel sidaas hina ma jirto marka Islaamnimada iyo Soomaalinimada macnaheedu waxa weeyaan dadka in la isku hayo waa walaalo Soomaalinimay ku walaal yihiin Islaamnimay ku walaal yihiin dhaqan bay ku walaal yihiin doqonnimo un bay noqon doontaa qofkii isku day ama dadkii isku day inay taa kala furfuraan oo furfurku waxa weeyaan deelada in haysa maanta tii keentay waay markii la isku duubnaana dad baan ahaan jirnay maantana waan dugaagay marka Hiil Qaran mabdiisu waa sidaa aniguna Hiil Qaran ma xogayo waxay taana waan ku soconanaa ilaa intay taariikhda bini'aadamku ku dhamaanayso professor waxaa jirta inta badan sidoo kale dadka waxay isweydiiyaan Cabdi Samatar dawladdiisii aad baray lahaata dawlad walbo la dhiso inta badan mucaaradi jiray oo wax muxaafada inta badan lagama hayo marka maxaa keenay in yani mucaaradada mar walba ka soo horeyso waxa weeye dadkeenu Ilaahay khayr ha siiyo aqoonteenu ma badna way aragnimadeenu ma badna qofku hadduu wadani yahay oo loo ogol yahay inuu wadani yahay waxa weeyaan marka ra'yigiisu ama ra'yigaygu ayuu ka dhiibanayaa marka waxa weeyaan haddii la yiraahdo war waxaasa khaldan oo waxina khalad dhab ay yahay ma in la sheegaba mise waa in laga aamuso waay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri haddii aad dulum aragtid ka hadal oo gacanta kaga jooji haddaanad gacan karayn hadal kaga jooji
haddaanad hadal karayn niyadda ka tiid dulumkaasi markaa horta siyaad barre markuu dowladda ahaa arday baan ahaa macalinimada wax yar baan ka soo gaaray markaasi markaa buuggii ugu horreeyay ayaan qorayaa markaasi oo ku saabsan dhaqaalaha iyo taariikhda waddanka markaa waxa weeyaan wixii han sheegay haddaad akhridid buuggaygu wuxuu soo baxay 1989 laba sannadood ama sanad iyo barh horteed intuna burbur ku dhiceen markaa suuradda ugu dambaysa ama chapterka ama safxadda ugu dambaysa buugga waxa ku qoran haddii sidan la waday qolooyinka dowladda sheeganayaan hay wadaan iyo kuwa mucaaridka ka soo horjeeda ee qabaa'ilka ku dhisan hadday sidan wadaan Soomaali sidaynu u naqaanay way u dhamaatay baa ku qornayd sanad iyo barh horteedna waa tii baa dhacday markaa marmar buu ilaahay ku waafajinayaa qowlka waxaan qabaa markaa inuu ilaahay waafajiyey wixii ummadda dilkii iyo dhacii iyo nidaam darradii iyo musuq maasuqii iyo walaal la'aantii iyo iimaan la'aantii ka socotay meesha markan ka hadlay wixii sidaa u socday markaa wixii markan sheegay ilaahay baa wixii sidiisii ka dhigay markaa waxa weeyaan ma waxa la fili lahaa haddii la leeyahay cabdi markaana mucaarid buu ahaa ma waxa la fili lahaa inaan durmaanka tumo oon guulwada siyaad qaada miyaa wanaagu noqon lahaa waan gartay ta labaadna waxa weeyaan wixii ka dambeeyey qolooyinkan qabqablayaasha iyo jabhadaha barnaamij baan ka qabanay maraykan lagu qabtay markii xamar ay qaraxday markaa qolooyinka kale SNM sheeganaya iyo SSDF iyo qolooyin kale USC sheeganaya iyo waxaan kuwan markaas wax wanaag ay soo wadaan ma jirto way hadduu wanaag jiro waxa weeye marka ugu horreysa magaalada inta la qabto ayaa dadka nabad loo soo dabaali lahaa laakiin se anaa madaxweyne noqonayo anaa gobol goosanaya ayaa dadkii gam looga siiyey miyaa laga aamusi lahaa waaye Soomaaliya taasi ta ugu dambaysana waxa weeyaan qolooyinkii qabqablayaasha warlordska loo oran jiray dee qofka qore anigu han ammaanay qofka qore han arkay inay ammaanaan kuwaasi waa kuwii u adeegay waaye oo oday baa laga dhigay qabqablayaashii maalin waxaan garanayaa Embagati intaan la tegin Eldoret la joogay ayaa casarkii baan soo gaaray salaada markaasaa la yidhi salaadii baa la tukanay hudheelka inta laga soo baxay waxaan arkay dhowr qabqablayaashii gacan ku dhiiglayaasha ahaa meesha yidhi waan ku tukanaynaa anu salaada casar ma tukanaya waan ku yidhi waayo kuwaasi dadkii gumaaday lalama tukan karo markaa qolooyin baa yidhi warday diinta maad ka baxaysaa markaasaan ku yidhi miyaanu diinteeda waan haystaa diintu waxay tidhi ninka iska dhaaf muslina qof bini aadama dila waa gacan ku dhiigla waaye markaa gacan ku dhiigla lama tukan karo horta ilaahay isaga ha soo haday taasina halkaasaan dhignay waxa timid Cabdulqaasim baa yimid Cabdulqaasim Soomaaliya oo dhan baa mooday wax iyo dowladdiisii waxaanu nidhi war hala taageero ayaanu nidhi laakiinse iyagaa taageeradii mutaysan waaye marka hadduu qofkii taageeradii mutaysan waaye ma weli durmaanka in loo tumo miyaha mise waa in dadka xaqa loo sheego waxa timid Cabdillaahi Yuusuf baa yimid oo Ethiopian iyo Cabdillaahi Allah naxariista oo waraaq baan u qornay maalintii la yidhi waa uu iibsaday meesha waa la wada iibsadaa kuwan joogaa way iibsadeen kuwa hore way iibsadeen dhammaan waa cayn xasan lacag baa shaqaysa dad Footeeniyo Soomaaliya xor ma jiraan ayaan ku nidhi intaad xamar ka degtay tiraahdid wixii haddaan dambi Soomaali ka galan hal laga cafiyo ya maantana aan wada jaanqaadno marbaasha yaa soo qoray iga tuura buu yidhaahday Allah naxariista Cabdillaahi waxaa timid maxaakiimtu waan taageernay anigu waxaan ahaa dadka dibadda ka yimiday kuwii waqti ugu badan ku khasaariyay maxaakiimta waayo dadkii oo soo hiloobay magaaladii xamar oo nabad noqotay wax weyn bay ahayd laakiinse waxa weeye tala waa lagu kari waayay wadaadadana waxa lagu kari waayay waxa la yidhi waa durmaankana tumanaysan leedahay meelooga kale aan taganaa meel horta bal xamar iyo banaadir ha la nadiifiyo maamul ha loo dhigo Soomaali wada lugeynaysa xamar iman doontaan ku nidhi maamul ha loo sameeyo 6 bilood oo dhowaan bariyay Sheekh Shariif ayaan bariyay Sheekh Shariif oo kula waa meeshan maamul ha loo sameeyo inakuna dusha ka ilaaliyo hada maxaakiimta tii farsamadii magaalo lagu maamuli lahaa ma lihidin Soomaaliya marka taasi taageeran way ku jirtay dhaliilna way ku jirtay waxa timiday qolooyinkan imika ka yimiday qolooyinkan xamar waxaan ka yimid bishii Juun baan ka yimid waanu u ducaynaa wali laakiinse waxa weeye iyaku ma ogolaan doonaan inay sidii xaq ahayd ummadda u maamulaan hadday u maamuli waayaan oo karti keeni waayaan iyakana runtaa loo sheegi
marka hadday run Soomaali xilligii gumeysiga ay ka mid tahay Somaliland oo ka lagu magacaabo doonaya inuu dawladda gooni u go'do iyo midan kilinka shanaad ee Ethiopia hadda haysato NFD oo Kenya haysato iyo Djibouti oo aqoonsi heshay Somaliland mararka badan waxay ku dacwootaa in yacni la gumaaday oo yacni meeshii ugu horreysay Soomaaliya qaadataa xurnimo oo calanka Soomaaliya laga taagay ay ahayd balse sidii ay doonayeen in wax u dhicin ay dib u la soo laabteen madax banaanidoodii sida ay uga hadal ku dhigeen arrintaasi يعني ما لديه كرا وأرين أي سومالان حق تاي كسحنته. وحوي هذه تاريخ إسلام نمد وحكورن مسا بين هالشيء تاريخنا بين لقى شيء ما تتكين وحوا ما آخره وحبنا مقر مركا كلمة دي بقول جير لصرف أيها مركا هذه أرين تصوم على النمد أي ولا النمد صرف كلا صار waxa taariikhda ku soo saaraysa waxa weeye markii dawladda ku meel gaarka loo jiray ama dawladda hoose ka taagnayd Muqdisho ka taagnayd ee Talyaaniguna dusha ka xukumayay Cabdillaahi Ciisana oo ahaa ra'iisul wasaaraha oo ahaa 10 sanadood ayaa la soo tababarayay si dawladnimada loo qaadi lahaa Jimciyadda Quruumaha ayaa inta ku shaqo lahayd marka iyaga way cadeyd koonfurta goorta gobonimada la qaadanayay 60 ka ahayd واتريانكو كونتنكي أيو كسون نقطة مركها وح وضع شريعة حمر بالغو شريعة سومالي ما أوجتان ريوقوي يقولون ما أوجت ريكونفور كانوا يلوبه وح لغو شريعة كونتني يتطوادي كونتني سيدي كونتني سجالتي حمر بالغ سوي مانيا وح لقى إيمانيا NFD بالغ إيمانيا وح لقى إيمانيا دير النبي جيجال لقى إيمانيا وح لقى إيمانيا جيبوتي وحكى إيمانيا محمود حربني لورنجري وقميسي قدير waxa laga imanaya Hargeysa laga imanaya iyo Burco xamarna waa la sii joogay waxa la oran jiray waxa weeyaan doodii Soomaali isku keenka National Somali Congress waxa Ingiriiska lagu yiraahdo markaas mabda'a SYL oo ka soo farcamay magaalada Muqdisho wuxuu ahaa mabda'eega koobaad Soomaali in la isku keeno shantaba in la isku khasbo maaha in la isku keeno waxaan wahaynaa waraaqa Allah yarxame Maxamed Ibrahim Cigaal aabihi Ibrahim Cigaal qoray oo ku taageeray amuurahaas ayaan wahaynaa waa intaan isku darsan iyo waxaan iyo gobonimo iyo hal soo dhimaanay marka waxa weeye markaas waxay Soomaalidii waqooyiga joogtay waxa dhirbaaxa ku dhacday dhirbaaxada ku dhacdayna waxa weeyaan Ingiriiska oo hayn jiray qayb gobolkan shanaad la dhaho reserve area iyo hawd ayaa 4 iyo 50 ilaa 60 ku wareejiyay Ethiopia dad fara badan halka way ka soo qaxay taas ayaa ambabar ku noqotay Hargeysa iyo Boorame iyo Burco iyo Sheekh iyo Laascaanood iyo dhamaanba markaas aysan baaburay Ingiriis markaas lagu kacaya marka waxa imanaysa in Aadan Cabdulle Allahu naxariista madaxweynihii koobaad Soomaaliya وتجيو هرجيسة وتجيو عقالنا مركا هذانا وحيمانيا حمر بويمانيا هذانا وهذانا كنا قانيا صار لحنا كيو حكونا قانيا هرجيسة وكقريب قليا قواني مدونك مركا دستور أي حمر لوجسي ديارنا يا تطبيقه كنتم فيه سيدي كنتم سجاري كنتم في الجودياري محمد إبراهيم عقال باللود ديبه وحلورنا يا هرجيسة جي هذا ما ضحدي كا وحي هتكبدلي كرتان كبدله وحد قدر ساننا كتر وهرجيسة اللي جاي ولا جد ضاضي لبا قضب أيام كترين لبا قضبنا وحكوا سابسين سيدا معمول كدت كدولة دوشة يلا معموله وحكله وهيكوا صوتارين هذا من هاي وقوي مجرته إذا رصاص ما دحنا جاها يسي ونا خص بسنة ما ينجري سيدا عس أيو إسكودر كوكفي متى SYLنا إسكودر كوي كشقين سي ري وقوي جنوا وي كشقين هي إدجار أوكهنتي معين جرته تاريخ هذي لقى هذا يرون marka waxa weeye waxay qoriyaan dastuurkeenu markaas 60 keenaya in Soomaali hay midowday waligoodna hay midoobaso dimuqraadiyad iyo wadan caynkaasana waxay noqonayso si taas waxay waalana dhacay bay waqooyigu dhaxdaa dad fara badan oo Soomaaliyeed oo la dhacay way jiraan waxa la nagu dhacay bayaan madaxweynuhu waxa qaatay wala weyntii waxa qaatay ama koonfurkii waxa qaatay ra'iisul wasaarihi iyo ka qaatay
generaaladii bilayska iyo ciidanka ayay kala qaatay dowladdii ugu horreysay waa dhab waaye laakiinse siday ku timid waxaa imanaysa markii reer waqooyigu soo guuray inay xamar yimaadeen ayaa dadkii 33 baarlamaanka waqooyiga u jiray ayaa kala jabay waxay u kala jabeen ma ahayn qabaa'il uma kala jabeen qolooyin cabdillaahi ciise raacsan oo maxamed ibraahim cigaal ka mid yahay iyo qolooyin raacsan cabdirashiid cali sharmaarke maxamed markaas iyagii baa isqabtay markaas afkooyi isugu tagay markaas maxamed ibraahim cigaal loo yeeray war la qadaan madax noo ahaan jiray aaway waxeenni baa lagu yidhi uu ku xanaaqo uu iskaga tagay taas ayaa keentay inay saas noqoto laakiinse inay dimuqraadigu waddanku sax ahaa wax kuuga iyadoo waqooyiga heleen waa la dhacay ayaa maxamed ibraahim cigaal xarfadiisa iyo caqligiisa iyo xeeladiisa ayuu la shuraakoobay dad kale oo Soomaaliyeed taas ayaa keentay inuu ra'iisul wasaarihii waddanka madax ka noqdo markaa dhicitaan haddii lagu fikirayo waa in la isbarbar dhigaa maxamed ibraahim cigaal waqooyi muxuu qabtay markuu ra'iisul wasaaraha cabdirasaaq xaaji xuseenna muxuu qabtay oo ka yimiday bari muxuu u qabtay waqooyi markuu ra'iisul wasaaraha marka labadaaba hal isbarbar dhigo ayaan dhicitaan ka barrami karnaa walaal marka hadday su-aashaadu ahayd ma waxay doonayaan inay dib ula soo noqdaan xaq miyaa taasi waxa lagu doodayaa dawlad gooniyaanu hayno isticmaar baan haysan jiray marka isticmaalka waxa ka horeyn jiray dhaqan Soomaaliyeed oon gobol jiri jirin ee deegaan jiri jiray marka ma dhaqankii Soomaaliyeed waxa laga mutaysanayaa wixii isticmaalku keenay miyaa laga mutaysanayaa wixii isticmaalku keenayna waxa ka dambeeyay oo 59 ilaa 60 yimiday dad Soomaaliyeed oo waqooyi ah oo xor ah oo isticmaal iyo military khasbin inay dood la galeen oo dhiig ismarsadeen dad Soomaaliyeed oo koonfur ka yimiday taasi miyaa laga mutaynayaa tii isticmaalka keenay walaal marka arrinta taariikhda hadii laga helo waxa weeyaan gobol iminka iska dhaaf waqooyi sodomeeya la mariyaa koonfur mid walba mid qabqablada doonaya inuu dadka masaakiinta wixiisa ku cuno win walbana waa lagu hoos baabay gobol caynkaasi ama qabiilaha ku dhisnaado ama ha ku dhisnaado wax hunguriga ku dhisnaadee Soomaali xabaal inuu ku rido mooyaane xal uma keenayaan qabaan markaas professor laakiin ma la dhihi karaa dawladda siyaad barwa dawladda badan baa ka dambeeyay ma jiro tan iyo markii Somaliland iyo Soomaaliya ay yani mid noqdeen madaxweyne gobolada waqooyi ka soo jeeda meeshii Somaliland leeyahay ee koonfurta ama Soomaaliya dhan madax u noqday waxyaabaha ay ku dacwanayaan haddii aan yani hoos ugu sii degno taaba ka mid ah taa maxaad isleedahay waxa weeye waa runo waxa weeye madaxweyne ma yimid ma iman madaxweyne reer waqooyi waddanka hadda dastuurkiisa Soomaalidu waxa weeyaan madaxweynaha wax walba oo haystaan madaxweynaha markii dimuqraadiyadda lahaa waxa ka awood badnaa ra'iisul wasaaraha sidoo dastuurku qoray af ingiriiska waxa lagu yiraahdaa executive prime minister ayaa waxaan ku barbar dhigayaa Allah yarxamay maxamed ibraahim cigaal iyo Allah hadda iyo cabdirasaaq xaaji xuseen wali nool oo labadoodba ra'iisul wasaaraha ay waddanka taladooda gacanta ku ay madaxweynuhu saxiix u lahaa wax kala ma lahayn labada in la isbarbar dhigo laakiin se kale dooda ka hor imanaysa waqooyiga waxa weeye haddii aan doonayno reer waqooyi haddaan nahay inaan ummadda u talino ya waxa weeyaan innakoo isku duuban oo mabdac Soomaalinimo iyo islaamnimo iyo gobol waqooyi la yiraah oo wada dadkooda siman yihiin isku duuban haddaan la nimaadno waxa ballana inaynu madax noqono tan ku dambe aan kuugu daro kale waxa weeye waxa jiri jiray dawladda marka sidaa loo eego waagii dimuqraadiga 13 wasaaradood bay ahaan jirtay 13 ka wasaaradood mar 5 wasiir ee ugu awooda badan oo cabdirasaaq la shaqayn jiray waxaan reer waqooyi waxa uu ahaa waxaad ka soo qaadaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka booni baa la oran jiray reer booni waxaad ka soo qaadaayo kale waxa weeyaan wasiirka khaarijiga nin uu nool yahay Axmed Yuusuf Ducaale la yiraahdo reer Gabiley magaalada ka yimiday ayaa ra'iisul wasaaraha wasiirada maaliyadda awil baaha oo reer Buraaha ka informationka bookax oo reer Arigaaba ayaa 5 wasiir bay ahaayeen waddankana sidoo dadku kala deganaa waaga
boqolkiiba su'aal dhanka kale haddaan ku weydiiyo dhawaantan dowladda Soomaaliya ka baxday dhawaan milgaarnimada waxaa jira murana ka dhaxeeya oo ah dowladda iyo dad kale oo mucaarad oo koonfurta oo ka dhex taagnay sida goboleysiga oo kale haddii aan ku qeexo maamul goboleedka Jubbaland baa soo baxay dowladdana way ayiday oo way diiday qaarkood kuwa kalena waa lagu dhawaaqay arrinta dastuurka Soomaaliya la ansixiyay roadmap-kan uu ku jiro iyo maxallahay dowlad goboleedyada maxaa ra'yi adiga aad ka qabtaa waxa weeye horta dastuurkan la sheegaya mid Soomaali intay soo samaysatay dadkii loo bandhigay inta la dhacsiiyay wuxuu macnihiisu yahay oo dabadeedna dadkii ay u footeeyeen ma jiro marka haddii gobollo la samaynayo waa intaa lala sugaa waayo markuu dastuurka dadku ansixiyo dastuur aan ansixin oon weli xalaal ahayn yaa weli buuriyadii ku taalo in la yidhaahdo dadkaa lagu xukumayaa oo si rasmi ahaan loogu xukumayaa aqoon darrada iyo maskax la'aanta meesha taala ayay ka mid tahay taasi waa ta koowaad dastuurka tan kale gobolladana waxa weeyaan meeshii nabada in nabadda lagu hayo waayo yaa dowladda dhexena nabadda hay ayido kuwa deganna nabadda hay ayidaan oo dabeedna qorshuhu noqdo marka dastuurka dadka laga dhaadhiciyo ay dadku u codeeyaan ayay keeni doontaa in marka la yiraahdo imsa gobol ayaa inoo deeqa run haddii la sheegayo madaxweynuhuna gef buu galay qolooyinka qabqablayaasha jooga Jubbaland ee Kismaayo gef bay galeen labaduba Soomaali ay ka galeen madaxweynuhu gef uu galayaa waxa weeye intuu hadlay ayuu Kismaayo yiri dib ha loo dhigo beledweyn buu tagay oo Soomaalidu ku xisaabinayso madaxweyne Xasan inuu reerka ka tirsan yahay markaasuu yiri hala socdo reer Kismaayo markaa way xanaaqeen waxay meesha qabyaalad ayaa ku jirta madaxweyne waxa laga yaabaa inuu gef u sameyn kas inuu taa u sameyn laakiin inay gef tahay waa wax cad weeyaan halkana nin hanu saaxiib ahaan jirnay oo macallin ahaan jiray imika macallin ma ahay oo gaanti la dhaho ayaa horta ololaha waday dowladda Kenya dabada ayay kaga jirtaa oo dhul Soomaaliyeed ayaaba la doonayaa in la wareego markaan run isku sheegno oo la leeyahay khayraad baa ku jira ama kalluun far badan ayaa ku jira marka waxa weeye dadka gobolka degan oo Soomaali far badan oo reer gaar ahayn xaq bay u leeyihiin inay nabad ku noolaadaan inay wada tashadaan iyo koo Soomaali iyo koon reer ahayn way reer waa wax halka ayna dhigay waay qolaba xuurta lagu qabanay kuwan waxa Kenya doonaysa in xuur ku qabato Ethiopiankina xagga kale ka soo galeen xuur baa lagu qabanay waqooyiga xuur baa lagu haystaa bariga xuur baa lagu haystaa kuwii bartamaha jooga xuur baa lagu haystaa mid walba waxa leeyahay cadaabka kale ka wanaagsan markaas madaxa loo salaaxaya doqonnimada Soomaalidu halka gaadhay markaas isaga shaarkii ka weynaanayaan aanu ba talin kara hadda dabadana waa laga wataa kii kala lagu garaacayaa Soomaaliga laakiin maxaa u diiday inay Soomaali way isjir ogoshahay way is ur ogoshahay way istiin ogoshahay way is af ogoshahay inay iyadu dhiibsato oo isku duwato oo ay cawradeeda qarsato maxaa u diiday marka qolada dhaliishanahi waxa weeyaan reer Kismaayo qolada dhaliishanahi waxa weeyaan kuwa dawladda sheeganaya xal labadaaba ka duwan ayaa la keeni karaa oo dadkuna ku badbaadaan qarannimo iyo xaqna lagu helo qabaa'il haddii la keeno gobol la ah waxa weeyaan haabaan mansuura ayuu quraanku yiraahdaa Soomaali waa haabaan mansuura baan ku leeyahay laakiin waxa loo baahan doonaa haddii gobol la samaynayo qaar baaxad weyn malaha 5 gobol haddii loogu batala oo Soomaalidu dhan wada degan tahay oo mid walba dhaqaalihiisa leeyahay oo waxa yare ka soo baxa dadka wax loogu qabtay aan lagu sarrifin dad fara badan oo mushaara ka qaata oo waxba dadka u qaban taas ayuu xaq u yahay bahalkan dastuurka ee buuriyada wada ku taaleen dadkii wali hayna xalaalayna agta loo dhigo wataay professor dhawaantan dawladda waxay ansixisay dhibaato la sheegayay sanadii ugu dambeeyay Soomaaliya inay haysatay oo ay ka mid tahay warbaahintu aad u soo farbaaday in jiraan saxafiyiin aqoontii xirfadda qaarkood xataa aan u bilaawnin kuna shaqeynay saxafiyiintuna way dhaliileen in ansixinta dawladda ay ansixisay ama sharciga ay u sameysay warbaahinta Soomaaliya mislaadahay warbaahinta sharciga ay u sameysay in ay ansixiyaan kulaha wasiirada waa mid wax ka bedeli kara
warbaahintii faraha badneed yani qaladaad fara badan qori jirtay waxa weeye horta dhalinyarta warbaahinta ka shaqeysa aqoontoodu waxay doonaysaa ha noqoto waxa weeyaan inay nabad galaan oy xoogsadaan oy waddankooda ka xoogsadaan ay dadkana warka gaadhsiiyaan ilaahayba awood u siiyo xaq u siiyo in la daayana weeye kuwii la dilana allah u naxariisto kuwa noolna allah ha badbaadiyo kow taasi tal koowaad haddii dawladdu ay leedahay farsamadii waa ka dhiman waxa weeye in farsamadii la abuuro iskuulladii la abuuro waxaa jira dad soomaaliyeed oo amuurahan warbaahinta xeel dheer ka gaadhay oo iyaka inta loo yeedho la yidhaaho amuurahan ka shaqeeya sidii dhalinyarta wax loo bari lahaa xataa kuwa shaqaynaya marna dhinacna hay ka shaqeeyaan maalintii dhinacna iskuulkii hay ka galaan oo farsamadii loo dhigo farsamadaa intaan la keenin ayaa sharci la keenaya taasi waa khalad waayo ta labaad waxaa la yidhi 40 jir qof ka yari ma noqon karo warbaahiye waxa weeyaan aqoon darrada dawladda ayay ku tusaysaa dadka waxa weeyaan madaxweynaha lagu noqdaa adduunyada wadamada ugu xoog waaweyn obama markuu madaxweynaha noqday ama clinton markuu madaxweyne noqday 40 jirka waxa muu dhaafsanay haddii sharci caynkaasi uu jiri jiray maraykan midkoodna madaxweyne muu noqday marka waxa weeyaan waxa 21 jir wixii ka badan xaq bay u leeyihiin inay journalist ama warbaahiye noqdaan in farsamadii haddii la yidhaaho farsamadii baa dhiman in farsamadii la dhiga meel waayo markaa sharcigu waa gef baan anigu qabaa gef wuxuu ku noqonayaa qof la yidhi 30 jir ama 25 jir oo iskuul ka soo baxay oo farsamadiisii leh ayaa dee waxa weeyaan hadday sidaa noqonayso han ka dhigna madaxweynuhuna inuu 70 jir qofka yar una noqon karin markaa xasan iyo wasiiradiisa iyo saacidiyaha ka wada baxaan meesha waa lagu gafay taasi dib ha looga noqdaan dambeyntii cabdi ismaaciil santar Soomaali fara badan baa lagu leeyahay dalkan inaan ku suganaan Koonfur Afrika oo locationada dukaamo ku leh ganacsi arrintaasi adiga muddo waa 9 Koonfur Afrika adigoo jaamacad baraka wax daraaseen ku soo bisay Soomaalida dhibaatooyinka loo laayo mana waraysato mala kulantay dambeyntii cabdi ismaaciil santar professor Soomaali fara badan baa lagu leeyahay dalkan inaan ku suganaan Koonfur Afrika oo locationada dukaamo ku leh ganacsi arrintaasi adiga muddo waa 9 Koonfur Afrika adigoo jaamacad baraka wax daraaseen ku soo bisay Soomaalida dhibaatooyinka loo laayo mana waraysato mala kulantay waxa weeyaan dadka cilmiga uu kala qaybsay cabdi ismaaciil cilmiga in yar ayuu wax ka bartay cilmiguna waxa weeyaan sida biyaha badda oo kale haddaad meel hanad wax ka qanin tagtid waad qarqi doontaa waad ku dhiman doontaa waad degi doontaa markaa qaybaha anigu wax kama baro in fact waxa ka islaantayda ayaa wax ka qorta qaybahaasi markaa maalin kale islaanta waraysta professor Awa ayaa fadhaa laakiinse intan aqoontaydu tahay waxa weeye waddankan dadka madow ee ku nool ee waddankan Afrikaanka dib xoog leh ayaa 400 sanadood haysatay oo la garaacayay la jibdilayay dhulkii laga boobay aan loo ogolayn inay dad yihiin haddii carruurta wax la barayo wax la barayaan ay noqon lahayn sidii khaadimiin caddaanka ay ugu noqon lahaayeen markaasaa hogad lagu wada xidhay markaasi waxaad arkaysaa waddankan Afrika iyo adduunyada saddexaadba waa meesha badan ugu badan ee dad lagu laayo halkan iyo Brazil ayaa isku mid ah dadka la leynayaana 99% waa dad madow oo waddankan u dhashay asalkii Afrikaanka waxa lagu dilayaa dadkaasina waa meelo Soomaalida lagu dilo waa dhulkan la yiraahdo maxaa la dhahaa location kan la dhaho waxa weeyaan markaa dadkii Soomaalida soo qaxay ayaa qurus raadinaya quruskii hoggi buu gelinayaa dadka lagu leeyahay marka waxa laga yaabaa qofka Soomaaliyeed maanta meesha lagu dilo in 5 kale ama 6 kale ama 10 kale oo Afrikaankii kala in lagu laayo innakase teenu baa inoo muuqata xaquna wuxuu ku oranayaa cidii la dilaba waa dambi baa laga galay intaba Allah u naxariisto Christian iyo Muslim ciidadooniya ma noqdaan waa qof dambi lagu dilay marka dadka Soomaaliyeed meesha loogu dilayo umalayn maayo in loo eegsanayo waa Soomaali oo waa gaar way haday sidaa tahay waxa la badbaadin lahaa kuwan hareerahooga lagu dilayo ee dadkii waddankan ahaa ayaan la warkan waa zuulaheeni kana waa kooseeyay iyo inaka inoo daayo ilaahiyitaan soo dilna ayaa loogan lahaa
markaa dhibaato waddanka oo dhan saamaysay ayay soomaalidu ku dhex dhacaysaa wax iyaka si gaara loo eedsanayaa ma jiro waxaa jirta markaa walaal waxa weeye soomaali waxaan arkay anigu waddankan soomaali ayaan kasoo wada horreeyey odayadii siimaanadii hore mooyaane ayaan kasoo wada horreeyey iyadoon dadkan la joogin baan iman jiray waxa weeye waxaan maanta arkaa dad iyakoo sita shaarka dushooda ay ku xidhan yihiin iyo macawista oo wax kale sidan baa waddanka yimid magaasaano iyo dukaano waaweyn iyo business ayay ku leeyihiin Johannesburg, Cape Town, Pretoria, Durban, maxaa heeday Nelspruit meel kasta baan kusoo arkay cid taabanaysaana hayna jirin qaar baa jaamacadaha ka dhiga cid taabanaysaa ma jirto markaa meesha laynagu dilaya wax weyn meeshii libaaxu dadka afrikaanka ee caadigaaba ku cunayee walaalayaal meesha aan ka joogno kuwa kale walaalaheena ee afrikaanka la dilayana iyakan haddaynu kuweena u mudaharaadano kuwana hanu mudaharaadno waan odhannahay aad iyo aad baa u mahadsantahay professor waana kaaga mahadcelinayaa sida wacan barnaamijka aad igala qayb gashay allah yasalima dadkuna way salaamaya guud ahaanna barnaamijkeenii reeb taariikh intaa aynu kusoo afmeeranaa barnaamijka toddobaadkani wuxuu idinkaga imaanayay caasimadda dalka koonfur africa ee magaalada Pretoria waa anigoo Cabdixakiim idinku dhaafaya sida ay amaanaan